laga soo bilaabo wakhtigii dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa sheekh shariif sheekh axmed ay dalka xukumaysay ilaa maanta oo ay jirto dowladda uu madaxweynaha ka yahay maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa jiray dagaal ay ciidamada dowladda iyo xoogaga amisom kula jireen ururka al-shabaab haddaba maadaama guul laga gaari waayey dagaaladaasi xilligan ma la joogaa goortii lala hadli lahaa al-shabaab si xalka soomaaliya loogu dhammeeyo wadahadal waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya doctor mukhtaar maxamed mahad oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho iyo maareeyaha tiyaatarka qaranka abwaan cismaan cabdulaahi guure waxaana hadalka ku horeynaya doctor mukhtaar. waxaan filayaa muddo fara badan bay waxaanay soo socdeen aada u fara badan haddana wayba kasii darayaanba sida anuu aan qabo dadka shabaabka la leeyahay iyo dowladda horta waxaa muhiimad ah inaan ogaano cudurku halkeebuu ka jiraa muxuu yahay se cudurku si dawadiisa loo helo yaa yidhi al-shabaab waa argagixiso yaa yidhi dowladda iyo wixii raacsanina waa murtadiin mashruucan yaa sameeyey horta maxaa ka dhexeeya oo isku khilaafsan yihiin labada qolo haddii uu yahay wax jira oo muuqda waay maxaa looga wada hadli layahay marna lagama wada hadlin waxaan qabaa aniga in ay daruuri tahay oo lagama maarmaan ay tahay in lala heshiiyaa oo nabad waxaan lagu dhammeeyaa. haye guure waxaan aaminsanahay haddii alla ku roon yahay marka dib loo fiiriyo taariikhda fikirka uu shabaab ku dhisan yahay iyo cidda aas-aastay marka la fiiriyo intaba inaan shabaab lala heshii karin sababtoo ah heshiis diyaar uma aha taladuna ayaga kama go'do qofka markuu taladu ka go'do wuxuu doonayana ay jiraan ayaa lala heshii karaa oo gorgorta lala geli karaa oo wuxuu dalbado loo samay karaa marka suuragal ilama ahan haddii alla kuu roon yahay shabaab inay inta gogol soo fadhiistaan heshiis lala galo dhaqankoodana maahan umana samaysna taladuna ayaga kama go'do marka waxaan isleeyahay doctor mukhtaar xogta uu shabaab uu leeyahay inay aada ugu yartahay ayaan aaminsanahay calaa kulli xaal mabda'a shabaab aaminsan yihiin ma ahan mid ayagu ay wataan mid ay leeyihiinna maaha. doctor mukhtaar waxaad sheegtay inaad aaminsan tahay in al-shabaab lala heshiin karo wadadee is leedahay heshiiskaasi waa loo mari karaa. horta waxaa mushkilada in laba faction oo iska soo horjeeda haddana wax hadal ah iyo wax waanwaana iyo wax nabad raadina midna aysan meesha ka jirin wax garowshaana uusan dhexloolin labadubana dad wadaniinayiin al-shabaab jin ma aha cirka kama soo daadanin waa dad soomaaliyeed ajaanibna ma aha gaalana ma aha meelay ka yimideen oo kalena ma jirto dalkan ay u dhasheen dadkan ay ka dhasheen dowladda iyo madaxdeeduna waa la mid maxaa hortaagan horta wax in la wada hadlo sabab waxa mamnuucayaanu ma garan karo waxaa weeye waxaa la rabaa hoggaanka dalka iyo dadka talada haya in ay hal abuur keenaan iyagaa laga rabaa wixii halkii loo mari lahaa iyo iyagaa laga rabaa xikmaddii iyo farsamadii lagu xallin lahaa waxan maaha waxa mar walba aan mataqaanaa aynu hadda meeshan ka sheegi karno ayagaa laga rabaa haddii hal abuur uusan jirin oo waxaan qabaaba dee horta madaxda dowladda albaabadaaba u xidhan meel loo galaba male qof u geli karaba male inta ay yaqaaniin keliya taa usoo galaba yaa wuxuu sheegaya marka yaa wuxuu sheegaya xaggey wax ka helayaan wax waraba ma hayaan waayo cid geli karta iyo cid u geli kartaba ma jirto iyagunba wax isu sheegay intoodu aniga waxaan qabaa in si rasmiya loo iclaamiyaba in si rasmiya in heshiis lagu dhawaaqo la iclaamiyo soo galaan iyaguna yimaadiin la wada hadlo in la qariyo iyo in dad loo diro iyo midna aanuma qababa madaxda dowladda ugu sarraysa inay iclaamiyaan ma qabaanu oo yidhaahdaan dee heshiis inay ku dhawaaqaan iyo wada hadal oo loo yimaado. abwaan guure maxaa u daliilah in al-shabaab aan lala hadli karin wakhtigan. waxaa u daliila inaan lala heshii karin oon lala hadli karin horta shabaab waxa ay aaminsan yihiin waxa waaye adduunka dhan markii gacanta lagu dhigo kadib in dowlad la sameeyo maba aaminsanaba haddii alla kuu roon yahay soomaaliya in maamul loo sameeyo waxay aaminsan yihiin ma midda kale loogadooda markaad fiiriso kitaabka qur-aanka ee samaawiga ah ayay waxay dul saareen 2 aake oo ruushku sameeyey aakaha laga dulmariyey kitaabku ma aha samaawi ma aha hase yeeshee mabda'a loogadoodu ka turjumayso waxaa waaye ilaa cimrigoodu dhammaado ama haddii alla kuu roon qiyaamuhu uu dhawaaqo in xabaddaas inay wadaan waay midda labaad dowladdan keliya maaha wax dalka soo maray dowlado badanaa soo maray
sheekh shariif oo madaxda shabaab ay isyaqaaneen ayaa madaxweyne soo noqday, heshiiskasuu ku baaqay waa laga diiday. xasan sheekhaa soo maray, heshiisuu ku baaqa waa laga diiday. madaxweynaha hadda joogaa 3 jeer uu ku dhawaaqay. haddii alla kuu roon yahay mid looga jawaabay ma jiro. midda kale waxaad ogaatiin baarlamaankii dowladdii cabdulaahi yuusuf iyo kii maxkamadaha berigii laysku soo daray asagoo 570 iyo dhowr ah xerada gaadiidka booliska ayay waxay ku dhawaaqeen maanta wixii ka dambeeya waxaan ku dhaqmaynaa oo tasuur noo ah kitaabka ilaahay soo deji. wixii looga jawaabay waxay ahaayeen hoobiyaal lagu soo garaacay. markii la yidhi maxaad hoobiyaasha ugu garaacdeenna waxay ku jawaabeen haddii alla kuu rooya ka yeeli mayno kitaabka ay tasuurka ka dhigteen. marka mabda'u ma ahan mabda' haddii alla kuu roon yahay soomaali ka yimaada ama soomaaliyu ay waddo. soomaalida waa la isticmaalayaa oo keliya. midda kale aqoon-yahanadan ama dibadda ka soo hadla ama dalka jooga waxay waayahan waa maqleen shabaab lala hadlo ayagoo dhahay waxay maqleen dalibaan iyo maraykana qadar ku wada hadlaya. laakiin waxay moog yihiin dalibaan inay diiday inay shacabka afghanistaan la hadasho ama dowladda afghanistaan ay ogolaatay inay maraykan la hadasho. marka mabda'u ma ahan mabda' haddii alla kuu roya soomaali ka dhaxeeya sida aan ka dalibaanba uusan afghanistaan uga dhaxayn. ugu dambayntii xalku muxuu yahay? sideese lagu soo afjari karaa dagaalka u dhexeeya al-shabaab iyo dowladda? aan ku horeeyo doctor mukhtaar. qofka bini aadanka sidiisaba wax inuu sameeyo waxaa ka horeysa horta inuu rabo oo iraado uu leeyahay waxaan inuu sameeyo ah. madaxda dowladdu haddii ay rabaan inay shabaab heshiis la galaan oo xataa soomaaliya oo dhan la heshiisiiyo ficlan waa la heshiisiin karaa baan qabaa anugu. jidooni ha loo maro ama dad u dhow ha loo diro, ayaga laftirkooda la yaqaanaa, goobahay degan yihiin baa la yaqaanaa, maalin walbaa loo tagaa oo dadka iyagaaba xukumo meeshay maxkamadda ku leeyihiin iyo dhulkooda la aadaa. waraaq maaseeje iyo waxbaa loo diri karaa, warbixin si walbaa lagu gaadhsiin karaa. marka rabitaankii in la helo yaa ka horeysa horta in wixii lagu dhaqaaqo. tan kale hadalka qof walba uu sheegi karaa. walaalkeen abwaanguure wuxuu sheegay in dowladihii hore oo dhan madaxweynayaashii hore iyo madaxweynahan hadda jooga mid walba uu dhowr jeer heshiis ku dhawaaqay iyo kan heshiiska in ficil la raaciyaa la rabaa. haddii la sheego afka uun laga sheego oo aan heshiiskaas ficil la raacinin waxba kama soconayo. waxa dowladnimada soomaaliya hortaagan sideedaba waa hadalka aan ficilka lahayn. yani 2000 ka soo bilow xilligii cabdiqaasin ilaa hadda waa 20 sannadood dowladda soomaaliya hal guri bay degan tahay oo ay ka talisaa, guri keliya. ma dhici karto. caalamku horumar weyn baa la samayn kari lahaa muddadaas. iraadadii baa maqan baan qabaa anugu iyo rabitaankii in wax la sameeyo dowladnimada iyo rabitaankii dowladnimada yar oon jirin meesha. hadalka cid waliba madaxweyne walba iyo wasiir walba iyo mas-uul kasta oo soomaaliya soo maraa wixii ummadda u baahnayd oo la jeclaa oo loo riyaaqaya buu sheegaa, laakiin ficilkeedii ma sameeyo. hadalka haddii uusan ficil lahayn waxba ma tarayo. waxaan qabaa hadalkii in ficil la raaciyo. cid meel loo maro lama weynayo. waa dad soomaaliyeed dadkani. waa lala hadli karaa, waa loo tegi karaa, waa la wici karaa, dad baa loo diri karaa. dariiq loo maro lama waayo. dad la yaqaano weeye, meeshii joogaanna la yaqaano weye. haddii aan maanta shabaab lala heshiinin oon soomaaliya o dhan la heshiinin mushkiladdu weligeed ma istaagayso. waa in tanaasul la sameeyaa oo sisaamax la sameeyaa oo wax walba laga tanaasulaa lagana heshiiyaa. guura haye dhinacaaga xalku muxuu yahay? waxaan isleeyahay hadda kahor waxaan nidhi waagii dilaacaba bele lagu ducaysiyo dhiig daata mooye cudurkiinu daawiyo daryeel kale ma leeyahay. daryeel kale ma leh. dabkuna wuxuu ka shidan yahay duniyadan muslimiintu inta ay ka degaan daahayaa ka dambeeya duulaanka yaa wada. dagaalkan horta meel kaloo ka socda. shabaab hadday rabaan dalkan inay maamulaan ama ummaddan ay u taliyaan shacabka masaakiinta oo marasta oo aan la dagaalamayn ma aysan gumaadi lahayn. waxay u gumaadayaan haddii alla kuu royayso ummadda dilka aan kala sooca lahayn ugu samaynayaan waxa waaye inaysan ka rabin wax mustaqbal ah. qofka ummad uu mustaqbal ka rabo oo inuu maamulo uu berri rabo haddii alla kuu roon yahay hooyada suuqayaanyada ku gadaysa gaari kuma qarxiy. shabaab uma samaysna wadahadal iyo heshiis inay galaan. shabaab waxaa looga adkaa karaa oo looga daawoobi karaa in dadka soomaaliyeed u midoobaan oo lala dagaalamo maalin cad oo haddii alla kuu roon yaa arkayay la yidhaahdo. sidaas unbaa looga badbaadi karaa. maahane shabaab uma samaysna inay heshiis iyo wadahadal inta galaan lagu heshiiyo. wax la sugaayo maahan, dhaqan looga bartayna maahan, taladuna ayaga kama go'do. waxaadna og tahay aas-aasayaashii shabaab oo haddii alla kuri soomaalida ahay
gacantooday ku baxeen inta ugu badan. raggii ugu horreeya waad ogtihiin ibraahim afghanistan iyo meesha ay mareen. marka tala ayaga ka go'da maahan. haddii alla kuruya daahana gadaala laga maamulaa, ayaguna waxay ahaayeen dadka la adeegsado. marka waxaan aaminsanahay xalku wuxuu ku imaan karaa in lala dagaalamo oo layska xoreeyo. intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen doctor mukhtaar maxamed mahad oo ka tirsan aqoon-yahanada magaalada muqdisho iyo abwaan cismaan cabdulaahi guure oo ah maareeyaha tiyaatarka qaranka. tan iyo kulanti